ጀግናው የመከላከያ ኃይላችን የፋኖ መሪዎችና አባላት እንዲሁም ተመላሽ ሰራዊት السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسان داوديال مeel kasto dunida nagala socotaan waa habeenimo Arbaca bisha December naysi galayso 15 sanada 2021 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah dagaal xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Mersa oo u dhow magaalada Woldaya iyo ciidamada dawladda federaalka Itoobiya oo go'doomiyay ciidamada TPLF-ta ee ku sugan magaalada Woldaya qaramada midoobay oo sheegtay in la soo celiyay qaar ka mid ah baabuurtii gargaarka ee dawladda Itoobiya ay ku xaysatay dagaalada dhanka Soomaaliya waxa uu weyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u muuqday inuu baneeyay dhinaca mucaaradka qaar ka mid ah ciidamadii loo qaaday wadanka Eritrea ee tababarka loo geeyay wadankaasi ayaa maanta laga soo dejiyay magaalada Muqdisho iyadoo dhan kale walaac fara badan ay ka muujiyeen mucaaradku qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay dagaalada ka walcaya wadanka Itoobiya gaar ahaan waqooyiga dalkaasi ayaa moodaa inay sii xoogaysanayaan iyadoo oo ciidamadu ay isku soo rogaal celinayaan isla markaana dagaaladu ay kolba meel ka bilaabayaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ayaa maanta weerar ku ekeeyay magaalada Mersa oo aan ka dheerayn magaalada Woldaya oo ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF-ta agaarka magaalada Woldaya iyo wadada ka imaata dhinaca Makale ay sheegeen in ciidamada dalka Itoobiya ay horay u qabsadeen isla markaana kooxda TPLF-tu ay go'doon noqotay oo aanay jirin meel kale oo ay ka baxdo dagaalkan ka dhacay magaalada Mersa ayaa la sheegayaa in dawladda federaalka Itoobiya ay doonaysay inay ku aado magaalada Woldaya balse ciidamada TPLF-tu ay halkaasi difaac dhigteen iyadoo magaalada Woldaya ay wali ku sugan yihiin ciidamada TPLF-ta ayaa la sheegayaa in tuulooyinka hoos yimaada magaaladaasi ay isku ballaarinayaan kooxda TPLF-ta si difaaca magaalada Woldaya ay u ballaarsadaan balse ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay in ay yar tahay inta ay sii joogi karayaan ciidamada TPLF-ta magaalada Woldaya oo ah magaalo ay hareereeyeen ciidamada TPLF-ta ayaa sheegay in aanay jirin wax culays ah oo saaran isla markaana ay dagaalami doonaan ayna yihiin kuwa iyagu haatan guusha haysta ciidamada kooxda TPLF-ta oo weerar kala duwan ku qaadaya dawladda Itoobiya isla markaana dhinaca kale ee magaalada Lalibela ka soo galaya ciidamada dawladda Itoobiya ayaa haatan u muuqda kuwa soo rogaal celinaya iyagoo dhowr weerar u geystay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya balse markaan eegno dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka Itoobiya oo xawli badan ku socday dhowr maalmood ka hor ayaa haatan u muuqda kuwa aanan sidii hore u soconin isla markaana aan soo bandhigaynin guulo waaweyn sida ay sameynayeen maalmihii la soo dhaafay iyo waliba toddobaadyadii tagay oo ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay magaalooyin badan ka saareen kooxda TPLF-ta lana filayay inay u jihaysan doonaan dhinaca gobolka Tigrayga balse ciidamada dawladda Itoobiya ayaa haatan u muuqda kuwa aanan sameynaynin weerar fara badan isla markaana ciidanka TPLF-tu ay dib u soo noolaadeen inkastoo wali uu ku sugan yahay agaga dagaalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaan jirin haddana wax horumar ah weyn oo ciidamada dawladda Itoobiya ay soo bandhigeen iyaga oo kaliya sheegay inay ku sugan yihiin wadada u dhaxaysa magaalooyinka Makale iyo waliba Woldaya waxaana wararka halkaasi ka imanaya sheegayaan in guud ahaanba ciidamada ugu lixaadka badan isla markaana uu tooska u hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay ku sugan yihiin wadada u dhaxaysa Woldaya iyo Makale balse lama oga halka ay u dhaqaaqi doonaan ciidamadaasi iyo waliba istiraatiijiyadaha ay u isticmaali doonaan kooxda TPLF-ta oo haatan muujinaysa inay dib u soo noolaanayso isla markaana doonaya in ciidamada dawladda Itoobiya ay ku furaan furimo cusub marka laga tago sheegashada dhinacyada isku haya dalkaasi Itoobiya gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo dagaaladu ay yihiin kuwa isku soo laalaabanaya isla markaana kooxaha halkaasi ku dagaalamaya waa dawladda federaalka Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF-tu ay mid walba sheeganayso ciidankeedu inuu guuleystay isla markaana aynay jirin wax madax bannaan oo halkaasi ka soo warrami karaya balse waxa kaliya lagu xaqiijinaya ay tahay soo bandhigista ay soo bandhigayaan inay ku sugan yihiin meelaha ay sheeganayaan inkastoo warbaahinta dunidu ay isticmaalayso satellite-ka isla markaana meelaha qaar marka ay soo sheegtaan ciidamada ku dagaalamaya halkaasi guulo kala duwan lagu eegayo satellite-ka bal inay ku sugan yihiin meelaha ay sheeganayaan iyo in kale iyadoo aanay jirin xaqiiqooyin kale oo la socda oo halkaasi lagu ogaan karayo in ciidamada sheegta meesha ay joogaan ay ku sugan yihiin
ciidamada kooxda TPLF oo haatan ka soo galay dhinaca Axmaarada magaalooyinka Lalibela ayaa la soo sheegayaa inay ku soo suqayaan dhinaca Axmaarada iyagoo dhowr tuulo ka qabsanaya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. dhinaca kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in la soo celiyay qaar ka mid ah baabuurtii waday gargaarka ee dowladda Itoobiya la sheegay inay u kaxaysatay dagaalada ka socda dalkaasi. qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay in la kaxaystay qaar ka mid ah baabuurtii waday gargaarka isla markaana ciidamada dowladda Itoobiya ay u kaxaysteen dagaalada ka socda dalkaasi Itoobiya ay kula jiraan kooxda TPLF. dowladda dalka Itoobiya ayaan ahayn wax ku cusub in la kaxaysto baabuurta shacabka isla markaana loo adeegsado dagaalada ka holcaya dalkaasi, iyadoo dowladda Itoobiya ay isticmaali jirtay baabuurta shacabka waxaana afka xabashiga loogu yeedhaa gidaash oo ah in baabuurta shacabka loo qaado meelaha dagaalku ka jiro isla markaana ciidamadu ay u isticmaalaan saanadaha iyo waliba ciidamada dagaalka galaya inay sii kaxaystaan baabuurta shacabka. balse qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in dadaalo badan oo la sameeyay kadib dib loo soo celiyay qaar ka mid ah baabuurtii loo kaxaystay dagaalada dalkaasi ka socda. qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay in la biliqaystay qaar ka mid ah gargaarkii loo waday gobolada waqooyiga dalkaasi oo gaajo ba'an laga soo sheegay. haatan aanaadno dhinaca Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ahaa gudoomiyaha midowga musharaxiinta ayaa la sheegayaa in midowgaasi ay soo kala dhex gashay madmadow isla markaana uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed qorsheynayo inuu gabi ahaanba isaga baxo midowga musharaxiinta. xisbiga Himilo Qaran ee uu ka tirsan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qaaday go'aan soo bandhigay khilaafka madaxweynihii hore ee dalka kala dhaxeeyay xubnaha kale ee golaha midowga musharaxiinta maalin kadib markii xogtan shaaciyeen ilo gaar ah. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dalka dibadiisa ku maqan ayaa la soo sheegayaa in golihii uu ka tirsanaa ee midowga musharaxiinta uu laba u kala qaybsamay kadib markii xubno ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ay ku dhawaaqeen habeen hore go'aan ah in guddi amni la sameeyo iyo in golo doorashada qabta lagu dhawaaqo. xubno ka mid ah golaha musharaxiinta ayaa ku kala jabay arrintaasi oo qaarna ay taageereen kuwo kalena ay kasoo horjeesteen. gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran Xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaashi, xogayaha guud ee xisbiga Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid, gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe ee xisbiga Dr. Maxamed Maxamuud Shirwac iyo xogayaha maaliyadda xisbiga Cabdinaasir Maxamed Sheekh ayaa kulan gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga. waxaana xisbiga Himilo qoraal uu soo saaray uu ku sheegay in kulanka ra'iisul wasaare Roble ay la qaateen xubnaha xisbiga Himilo Qaran diiradda lagu saaray sidii la isaga kaashan lahaa sixidda doorashada iyo dardargelinta doorashooyinka. dalabka xisbiga iyo in doorashada la sii wado iyo hanjabaadda la sii daba dhigay waxay si cad uga hor imanaysaa mowqifkii golaha midowga musharaxiinta ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif ee ahaa in doorashooyinka dalka la joojiyo. hase ahaatee tan ayaa muujinaysa in golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya uu soo kala dhexgalay khilaaf ku saabsan qaabka loo wajahayo sixitaanka khaladaadka doorashooyinka dalka. dhinaca kale qaar ka mid ah askartii hore loogu qaaday dalka Eritrea ee halkaasi tababarka loo geeyay ayaa maanta laga soo dejiyay magaalada Muqdisho iyada oo horey ay qayladhaan xoogan uga muujiyeen midowga mucaaradka ayna sheegeen in ciidamada haatan lagu soo daldalaya dalka Soomaaliya lagu goleeyahay in lagu khalkhalgeliyo musharaxiinta iyo waliba doorashada ka socota dalkaasi. iyadoo horey buuq iyo sawaxan fara badan ay u abuureen ciidamadan la geeyay dalka Eritrea iyo mar iyadoo la sheegayba in ciidamadaasi aysan bad qabin isla markaana ay ka qayb galeen dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya ayaa haatan qaar ka mid ah lagu arkay magaalada Muqdisho isla markaana dib loogu soo celiyay dalka. balse walaaca faraha badan ee haatan ay abuureen midowga musharaxiinta iyo waliba qaar ka mid ah dadka odorosa ama ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa ku sheegaya in waqtiga lagu soo beegay ciidamadan uu yahay waqti xasaasi ah isla markaana dowladda dalka Soomaaliya haatan ka arrimisa lagu eedeynayo inay doorashada maroorsanayso. akhayrta sharafta leh wada nagala socoto intaas waxaan kusoo koobinaa guud ahaanba wararkii naga soo gaadhayay gobolka Geeska Afrika. intaan ku kulmayno warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.